بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا أحبابي كسر دبادة channel كينا هبة محمد أدبان إدين سلامي دمانتين ميل والبودوني دا دعالة دا كتشوكتين. الحمد لله إلهي بانا مهد إسكاله سبحانه وتعالى. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا حسن الخاتمة خاتمة ونكسن إلهو خاتمة ضيادة خير قاتم إن شاء الله. انت حنوسا إلهو شافي انت عافيماتك حيثة مسلمين تنا إلهو عافيماتك وضع الزيادة. انت أولاد لآن أهنا إلهو أولادك إرزاق. انت فاميليا أهو لباتة كلا حيثتنا إلهو مصلحة خير خبطو دحدك. انت أولاد لغا قاتنا إلهي سبحانه وتعالى أو وليبا قالada ka qaatana ilaahay awlaadooda ha u soo celiyo guri walbo oo muslim ah. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiinayaa xasilooni iyo deganaansho iyo sakiina insha allah. awlaadana saalixiin allah nooga dhigo allahuma aamiin. intaas kadib mawduuceenaan usoo dhaadhacno insha allahu tacaala. gabaray ku kalsoonow naftaada ku kalsoonow. ha iska shakinin ha walwelin ha murgin ha fikirin naftaada ha dulaynin ha israfaadinin ha iswaalin dhibaato ha isku horseedin ha iska dhigin qof aaman jirinba. waxaa tahay yacni qalbadaada ka bixi yacni murugta xasilooni la-aanta degenaansho la-aanta isku buuqa cudurro badan baa laga qaadaa run ahaantii. ha iska dhaadhicinin marka inaa adigu tahay qof eber ah. yacni qofka markuu sometimes isku abuuro yacni dhibaato badan ay haysato kale mathalan yacni qofka inuu iska soo qaado qof eber ah markaasuu isku furayaa wuu isla hadlayaa. isla hadalkaas waxaa ka imaani karo marka xanuuno badan oo maskaxiyan ah. weliba qofka bini aadamka ah markuu jir ahaan u xanuunsan yahay iyo markuu maskaxiyan u xanuunsan yahay dee markuu jir ahaan u xanuunsan yahay daawadiisa way iska fududahay. laakiin qofka bini aadam maskaxiyan markuu u xanuunsado cudur ka weyn ma lahan. subxaan allah. yacni inaa maskaxiyan u xanuunsatid cudur weyn weeyaan. yacni waa xanuunadu way kala dhib badan yihiin. xanuunbo qof kasta horta qofka bini aadamka ah xanuun waxaa jirto dheg haddii lagaa qabto iyo ilig haddii lagaa qabto iyo meel lagaa qabtabo waa xanuun. qandhaa ku qabanayso waa xanuun. ibni aadamku waa iska daciif. laakiin xanuunada kala daradaran xanuunada way kala dardaran yihiin. markaad maskaxiyan u xanuunsan tahay iyo markuu xanuun caadi ku hayo waa dee kaafi iyo kala dheeri. yacni waa kala shiddo badan tahay. xanuunka maskaxda waa xanuun xun weeyaan. yacni waa xanuun khatar ah qofka inuu maskaxda ka xanuunsado. maxaa marka keenaya maskaxda qofka inuu ka xanuunsado? waxaa keenaya qofka inuu isla hadlo wax badan. horta haddaad waxaysatid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dheh. koow horta number one ilaahayga qaaliqa ahaa soo matid qof u sujuudo u rukuuco oo muslim ah oo ashahaadanayo. haa maxaa kaa maqan? waa inaad dhahdid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin soo maha. laakiin mashaakil way iska jiraan oo naf iyo shaytaanba kugu xiriiro oo waxaan waxba ahayn buu wax kaaga dhigayaa oo markaasaad isku furaysaayood fikiraysaayo. horta qof kasta oo bini aadam ah wuu fikirayaa. taas laba caris weydiin mayso. laakiin maxaa loo baahan yahay gabarey inaad isdejisid, inaad shaydaanka iska naartid, inaad allahaada aqoonsatid, inaad salaadaada badisid, inaad ilaahay si dhab iskugu xirtid, inaad baryadaadu zaa'id ka dhigtid. sax yacni waa daawoobaysaa biidni illaahi kariim. waa daawoobaysaa insha allah. waad caafimaadaysaa insha allah. yay kaa noqonin inaad taa meel soo fariisatid hadallo xunxun oon wanaagsanin aad dhahdid. stage waayo isku buuqa badan xanuun badan baad ka dhaxlaysaa.
isku buuqa badan isla hadalka badan xanuuno badan baad ka dhaxlaysaa maskaxiyan baad marka dambe u xanuunsanaysaa qalbiyan baad u xanuunsanaysaa markaasaad waxaa noqonaysaa qofkii inuu qabaysan kari waayo inuu shallaysan kari waayo inuu hurdi kari waayo in hurdadii ka tagto in yacni mashaakil oo dhanba subxaan inuu guriga wax ka qaban waayo inuu iska fadhiyo un qofka camoolaha ah oo yacni baraleyska ah waxaad odhan qofka iska baraleyso wax ma qaban karo baad leedahay yacni baraleys waxaan ka wadaa qofaan sareeti ka kici kare ilaahay ha shaafiyo dembi dhaafna allah uga dhigo ummadaas ayadaa qofkaas de waa qof loo garaabayo qof xayi ah oo yacni dhammaystiran socon karo istaag karo laakiin aan waxba qabsan karin ka war laba indhooda kusoo dayayso rafaasan jacjacsan musiiba subxaan allah yacni qofkaas marka xaggee laga soo gaaray hadalka badan buuqa badan yacni isku buuqa badan isla hadalka badan yacni wixiioo waxba ahayn wax weyn aad ka dhigtid wixiioo aan waxba ahayn oo xallismi karaa wax weyn ka dhigaysaa hadal baa lagu oranayaa waa si kale maskaxiyan baa marka waa isla hadlaysaa waxaas marka inay dhacaan ma wanaag yacni waxyaalahaas oo kale horta way badan yihiin xanuunada noocaasna aad bay u badan yihiin ummaddana allah ka shaafiyo dadka dhanba hadda dhar unbay qabaan mooyaane inta isla hadlayso iyo inta caadiga iska yar ma fahmino ilaahay ummadda ha caafiyo gabaray is ogow shaydaanka iska naar nabigaada ku salli calayhi salaatu wasalaam salli wasallam ala sayyidina maxamed waxaa weeyaan aan alla isku xirno shaydaanka iska naarno ilaahay isku dhiibno aan waxyaalaha macno la-aanta ah oo aan qaymaha u yeelaynana iska dhaafno si maskaxdeenna oo xasilooni iyo degeraasho iyo sakiina ay u hesho waxyaalaha la xallin karo oo annaga aan isku waarayno intaan meel fariisano cabbaar aan ku fikirayno ilaa ay maskaxdeenni ka daasho aan iska yarayno aan iska yarayno sax aan iska yarayno meel iska dhigno khayr badan baa idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaan illah